وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaa noo socda casharadii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aan marba magac ku sameeynay sharaxaad kooban intii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo fududeeyo. wuxuu hadda magacyada aan sharxayna ku saabsan yihiin magaca Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee ah as-Sami' iyo magaca kale ee ah al-Basir. as-Sami' waa Allah subxaanahu wa ta'ala magacyadiisa mid kamid ah oo ah in Allah subxaanahu wa ta'ala uu yahay alle maqla khalqigiisa iyo uunka uu abuuray. quraankana meel aad u fara badan buu magaca as-Sami' uga soo arooray ilaa culimada qaarkood ay gaarsiiyeen 45 jeer inay quraanka ku soo aroortay ayadoo kaligeed ah oo as-Sami' kaliya ah ama ayadoo ay la socdaan magacyo kale oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay. waxaa jira marar kaligeed ay soo aroortay sidii nabiyullaahi Zakariya hadalkiisii lagu sheegay ahaa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samii'u du'aa. marna lagu sheegay hadalkii nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam ee ahaa alxamdulillaahi alladii wahaba lii cala al-kibari ismaaciila wa isxaaq inna rabbii la samii'u du'aa. marar badanna quraanka waxay ku soo aroortay ayada oo la socota sifo kale sida sifada al-Basir oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meelo badan oo quraankiisa kamid ah uu ku soo dhaweeyay magaca markii uu sheegayay. mararka qaarna waxay ku timaadaa ayadoo la socoto sifo kale ama magac kale oo ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu yahay qariib wa in ihtadayta bima yuuxi ilayya rabbi innahu samiicun qariib. sidaa darteed mararka qaarna waxay ku imaataa ayadoo la socoto inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yahay alle wax walba horay u sii ogaa oo caliim ah oo khalqigiisa iyo uunkiisa wax allaale iyo wixii ay sameyn doonaan uuna arkayo uuna maqlayo uuna horay u sii ogaa. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سادرتد الله سبحانه وتعالى إنه يهي الله مقل بدن وخلقه سمقلا وحو مقلا وحا أي qalbigooda ku siraystaan inta aysan afkooda ka sii sheegin ama waxa ay laba kamida gaar ugu wada hadlaan ama wuxuu maqlaa wixii ay banaanka inta u soo dhigaan ay ku sheekeeyaan ama waxa ay ku fakarayaan inta aysan ba u bedelin oraahiya hadal aysan u bedelin ama marka ay isgadgadinayaan oo kaligood meel joogaan oo fadhiyaan ama ay jiifaan waxa maskaxdooda ku soo dhacaya. sidaa darteed alle wuxuu leeyahay maqal dhameystiran wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo inuu weeleen karo waxa khalqigiisa ay ku hadlayaan codadkoodana codkooda qarsoodiga ah iyo codkooda banaanka u soo baxay labadaba alla xaqiisa inay isku mid ka yihiin. la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. sida darteed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax kasta oo khalqigiisa ay ku hadlayaan si joogto ah oo maqal ah buu u leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si magacan la yiraahdo as-Sami' wuxuu ku yimaadaa asagoo macnayaal kala duwan buu quraanka ugu yimaadaa. mar wuxuu ugu yimaadaa maadaama uu yahay alla wax og alla awood badan wuxuu magaca macnihiisu mararka qaar ku yimaadaa inuu alla ku siiyay adiga awoodda wax ku maqli lahayd oo leeyahay alla asaga ku dhageysiinaya waxa aad rabtid inaad maqashid. mararka qaarna wuxuu ku yimaadaa ayadoo loola jeedo Ilaahay wixii aad weydiisatay ama wixii aad Ilaahay u sheegatay ama ka dacwo ama maxaan ku raada Ilaahay bari Ilaahay wuu ka ajiibay oo wuu ka yeelay. mararka qaar wuxuu ku yimaadaa asagoo ah hab handadaad ah oo leeyahay wixii aad ku hadashay waa ku maqlaayay. يعني erayada waxay kamid tahay ugu handadaada badan am yaxsabuuna anna la nasma'u sirrahum wa najwaahum laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniyaa. يعني waxa loola jeedaa war waxaad ku hadlayseen waan idin maqlaynay oo macnaheedu tahay inay tahay handadaad. mararka qaar maqalku wuxuu quraanka ku yimaadaa ayadoo loola jeedo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku daryeelayo oo uu kula jiro oo uu ka warqabo
ومعنى تهي وروح كستود كجرت وان كوغاهي وانا كاور قباي هر اسعو ان لغو يري بي لمid tahay وسيد الله القرآن كيسو ugu yiri إنني معكما أسمع وأرى mararka qaarna waxaa loola jeedaa waxay aad ku haleysay ee aad مثلا maskaxdaada intay ku soo dhaceen aad kaliya ku sheekaysatay ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka warqabay oo ogaa wax allaalay waxay rabaan ha noqdaan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah marka quraanka siyaabo kala duwan oo aad iyo aad u fara badan baa kelmadan as-sami' ay ugu soo aroortay mar waxay la xiriirtaa in la maqlo codkii oo hadii aad dacwo qabtay hadii dareen aad qabtay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku maqlaayo mararka qaarna waxay ku timaadaa in lagu fahmaayo waxa aad rabtid inaad dhahdid yani mararka qaar waxa la dhahaa waa ku maqlay iyadoo laga wado waa ku fahmay waxa aad ka hadlaysid ama waxa aad rabtid inaad samaysid walaw alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walaw asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun oo loola jeedo yani wax maskaxdeena ku jira hadii yihiin wax wanaagsan waanu idin fahamnay markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala albaabadi khayrka ah uu ku furaya sida hore u soo sheegnay mararka qaar waxa loola jeedaa in laga yeelay oo ah in lagu aqbalay wixii aad sheegtay waa laga aqbalay yani waan yeelay amal bay lamid tahay inna rabbi la samii'u du'a oo lamid ah ud'uuni astajib lakum hatta salaada marka tukanayso oo aad tiraahdo sami'a Allahu liman hamida waxa loola jeedaa ilaahay waa ajiibay qofkii u mahadnaqay sida darteed waxay ku timaadaa mararka qaar in lagu maqlay oo ay u dhiganto waa lagu ajiibay ama waa lagu yeelay wixii aad rabtay luqadda carabigana sidaas bay dhaqan ahaan u tahay hadii lagu yiraahdo waa lagu maqlay macnaheedu waxa way arintaas waa yeelnay yani fulinteedii baan ka qaadanay baa loola jeedaa sida darteed ilaahay quraankiisa waxa jirta aayad ku soo degtay oo leeyahay wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala junudukum waxaynaadaan culimada qaarkood aayada waxay ku soo degtay in saddex nin intay meel fariisteen oo sheekaysteen niman aad iyo aad u feeray waaweynaa oo burburnaaba inta meel fariistay waxay yiraahdeen horta ilaahay mana maqlaa mid baa wuxuu yiri ilaahay haa uu na maqlaa hadii aan codka kor u qaadno oo aan qaylino ilaahay waa na maqlaaya laakiin hadaan hoos u hadalno ilaahay nama maqlaayo markaas kii kale wuxuu ku yiri hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala marka aan codka qaylino uu na maqlaayo hadii markaan qarinana uu na maqlaaya markaas ilaahay aayadan quraanka soo dejiyay wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum sida darteed qofka muslimka waxa laga doonayaa maadaama uu ilaahay ku maqlaayo oo aad ogtahay inuu ilaahay ku maqlaayo oo maqalka intaas oo macno leh uu ku maqlaayo hadba sidii aad u rabto maqalkana ilaahay ku maqlaayo adiga waajibka ku saaran koowaad waxa weeye in ilaahay ka xishootid oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sirriigatid maadaama ilaahay ku maqlaayo waxa la rabaa talaabo kasta oo qaadayso inaad ka fiirsato tiraahdo waxaan ilaahay uu maqlaaya waxa kale oo laga rabaa waxa aad ku hadlayso oo afkaaga ka soo baxayana in ayagana meel kuugu qoran yihiin oo maskaxdaada ku qoran yihiin oo aad xusuusato xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut وهذا الأفكار كسب بحيه مرة قال دباتوين هي تهلكو هي دباتو كو كيني كرا وكي النبي عليه الصلاة والسلام يري وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم عرب كان وحو كيني بعدت كالنار كتورة أو كتخانتقية صادرتيد وحا laga rabaa inaad mar walba maskaxdaada ku hayso maadaama aad bini aadan tahay ilaahaygi maqalka ku siiyayna oo ku maqlayo asagaas inaad ka sirriigato oo aad ka xishooto al-Imam Abu Hamid al-Ghazali marka uu sharxayo qofka bini aadamka awoodda uu maqalka u leeyahay si cajiib badan buu u sharxayaa wuxuu leeyahay qofku wuxuu leeyahay dareen uu wax ku maqlo laakiin aad iyo aad u tabar daran sababtoo ah qofku codadka ku daaran oo dhan ma wada maqli karo hadii hadda aad meel soo gasho oo dadka oo dhan wada ma hadlaan ma wada maqli kartid hal cod ama laba cod baad ka qaban kartaa waxa kale oo maqli kartaa buu dhahay codka markuu ku soo dhawaado oo masaafada dhagtaadu ay ka furan tahay maqalka markuu soo gaaro baad maqli kartaa haduu laakiin ka fog yahay waxa laga yaabaa mararka qaar aad u jeedo inuu qof hadlayo ama cid hadlayso laakiin aadan awood u lahayn inaad maqasho maadaama ay ka fog tahay waxa kale wax lagu maqlaa buu dhahay aalad ilaahay jirkaaga ku abuuray oo ah dhagahaas wax lagu maqlaa dhagahaas haday cilad galaan ama aafo galaan ama cudur galaan ama daciif noqdaan codkii aad maqlaysay hoos buu u dhacayaa sadarteed wixii fahamkii iyo garashadii aad u lahaydna hoos bay u dhacayaan mararka qaar waxa laga yaabaa buu yiri Imam al-Ghazali codkan haduu ka bato adiga tankaagana inaad maqlin yani hadii lagu qayliyo waxa laga yaabaa mararka qaar
inaadan maqlin oo wixii oo dhan ay isaga kaa dhexyaacaan. laakiin alle subxaanahu wa tacaala nooc walba oo aad u hadasho wuu maqlayaa. hadday dadkoo dhan hamar wada hadlaanna wuu maqlayaa. haddaad tartiib u hadashana wuu ku maqlayaa. haddii si gaara aad u hadasho wuu ku maqlayaa. haddaad keliga isla hadashana wuu ku maqlayaa. awooddaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaystiran buu leeyahay. sidaa darteed waxaa lagaa doonayaa maadaama aad og tahay tabarta maqalkaaga uu la egyahay, adigana waxaa lagaa rabaa inaad maskaxda ku hayso waxa afkaaga ka soo baxaya ee khalqiga ilaahay ay maqlayaan oo uunkiisa ay maqlayaanna waxaa la rabaa inaad marka hore ka fakarto oo aad maskaxdaada geliso. culimmadu waxay sheegaan hadalku qofka marka uu ka soo baxayo maskaxdiisa inay marka hore ka fakartaa la rabaa hadalka qaybihiisa. waxay hadalka u qaybiyaan hadal aad garanayso faa'iidada aad ka helayso laakiin aad ka baqayso dhibaatada kaaga dhalanaysa. taa marka inaad ka badbaado oo aadan marka horeba ku hadlin baa kuu fiican. hadalka qaar waxaa jiro aadan garanaynin faa'iido aad ka helaysid, haddana aadan garanaynin dhibaatada kaaga imaanayo. kaa marka horeba maxaa kugu wata, maxaaba u soo qaadaysaaba. waxaa kaloo jiro hadal aadan garanaynin faa'iidada aad ka helayso laakiin cabsi ay kaa hayso inay dhibaato kaaga timaado. kaana waxaa lagaa rabaa dad caqli leedahay inaadan kuba hadlinba. laakiin hadalka la rabo inaad isticmaasho waxaa waaye hadal aad faa'iidadiisa garanaysid haddana aad hubto wax dhibaato aynaysan kaaga imaanaynin. kaasaa la rabaa inaad isticmaasho oo aad ku hadasho. sidaa darteed imaam al-Ghazali waxyaabaha uu aad u sharxay waxaa ka mid ah carabku inuu yahay waxyaabaha ugu aafada badan ee qofka bini aadamka ah ku dhaca oo afkiisa ka soo baxo. dunuub aad u fara badan oo tiradoodu aad u badiyey buu ku sheegaa oo ay ka mid tahay beenta, ay ka mid tahay xanta, ay ka mid tahay dad isku dirka, ay ka mid tahay markhaati beenaalaha, ay ka mid tahay dhaarta beenta ah, ay ka mid tahay dadka cirdigooda iyo sharafkooda in lagu xadgudbo, ay ka mid tahay waxaanan waxba kuu taraynin oon ku anfacaynin inaad uga hadasho oo aad ku sheekayso, inaad dadka ku yasto, inaad maxaan ku irahdaa dadka ku dulmiso. intaasoo aafooyina bay leeyihiin. culammada qaarkood waxayba gaarsiiyaanba 72 aafo inuu leeyahay carabka. saa darteed waxaa laga rabaa hadalka afkaaga ka soo baxayo inuu xikmad iyo edab iyo akhlaaq uu ku dhisan yahay. waxaa kaloo aad loo sharxay ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha laga magan gala waxaa ka mid ah sharta shaydaankana waa laga magan galaa, sharta insigana waa laga magan galaa. quraankiisa waxaa ku jira qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min shari lwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri nnaas min aljinnati wannaas. saa darteed qofka bini aadamka ah shartiisana ilaahay waa laga magan galaa, jinniga iyo shayaadiinta shartoodana ilaahay waa la magan galaa. laakiin culimmadu waxay aad iyo aad u sharxeen 2 aayadood oo si cajiiba ay u sharxeen oo waxay yidhaahdeen shaydaanka maadaama annagu uu maqal nugu yahay laakiin aanan arkin, yani shaydaanka waxaa aragtay ma ahan, waa maqashay keliya. markii aad ilaahay ka baryeysay inuu shaydaanka shartiisa kaa qabto waxaa la isticmaalay oo qur-aanku isticmaalay in lagu baryootomo magaca ilaahay oo maqlaha ah iyo magaca ilaahay ee ah ilaahay subxaana wa tacaala inuu caliim yahay oo wax kasta ilaahay hore usii ogyahay. wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi waimaa yanzaqannaka min ashaytaani nasqun fastacid billaahi inahu samiicun caliim. shaydaanka wuxuu agtaada ka yahay waxaa maqashay, saa darteed waxaa la magan galay magaca ilaahay subxaana wa tacaala ee ah inuu alle cilmina u leeyahay ogaalna u leeyahay. waxay kaloo culammadu yidhaahdeen sharta shaydaan insiga bini aadamka shartiisa, bini aadamka waxaa ujeedo aa maqlayso oo aa isla nooshihiin. markaad damacday inaa ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gasho shartiisa waxaa la isticmaalay ina aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi bigayri sultaanin ataahum in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaligii fastacid billaah inahu huwa asamiicu albasiir. oo loola jeedo insigan waa u jeeda ilaahay oo aniga waaba arkaa waana maqlaaye, shartiisa ilaahay oo adiga asagana u jeeda asagana arkaaya oo maqlaaya ilaahu iga qabo. laakiin shaydaankii waxaa la yidhi ilaahayow adigaa oge ilaahu naga qabo, leanna waan maqalnay un anaga shaydaan mana naqaano. saa darteed magacyada ilaahay uu leeyahay oo gaarka ah waxaa ka mid a albasiir oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uunkiisa arko oo u jeedo oo waxa ay samaynayaan uu arkayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daalacanayo. qur-aankana saasoo kale meelo fara badan uga soo aroortay. culammada qaarkood waxay gaarsiiyeen 40 jeer ka badan inay qur-aanka ku soo aroortay. ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu arkaa sida uu u maqla khalqigiisa oo uunkiisa oo dhan uu u maqlayo buu saasoo kale uunkiisa oo dhan u arkaa. saa darteed wax kastoo adduunyada ka dhacayana wuu arkaa, xataa nolosha
samaysan ee tan bini aadanka aan ahayna ilaahay subxaana watacaala sidaasuu u arkaa sidaa darteed ilaahay wuxuu leeyahay dalika biana allaha yuuliju alleyla fi nnahaari wayuuliju annahaara fi lleyl waana allaha samiicun basiir sidaas koonku isku badbedelaya ilaahay subxaana watacaala wuuna maqlaa wuuna arkaa wuxuu kaloo ilaahay arkaa oo uu ogyahay waxa ay addoommadiisu samaynayaanna wuu arkaa walow basata allahu risqa licibaadihi labagaw fi lard walakin yunazilu biqadarin maa yashaa inahu bicibaadihi khabiirun basiir wuxuu kaloo ilaahay arkaa bini aadanka waxa ay kala doordooranayaan iyo siday u dhaqmayaan ayadana wuu u jeedaa kii islaamnimada qaata kii islaamnimada diida intaba waa arkayaa ficilkay samaynayaanna wuu arkayaa huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'min wallahu bima tacmaluuna basiir ilaahay subxaanahu watacaala marka sifooyinkiisa iyo magacyadiisa mid kuwooda ugu fiican bay ka mid yihiin oo ah in ilaahay subxaanahu watacaala sida uu wax u maqlaayo oo sidaasna uu arkaayo khalqigiisa ilaahay subxaanahu watacaalana khalqigiisa uu siiyey awooday ayaguna wax ku arkaan oo qaarkood uu u ogolaaday inay wax arki karaan sidaa darteed muslimka waxaa laga rabaa inuu ogaado maadaama ilaahay ku arkayo waxa aad samaynayso uu ku arkayo waxaa la rabaa inaad u gudubto martabada la yidhaahdo martabatu alixsaan alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak sidaa darteed ilaahay mar walba wuu kuu jeedaa mar walbana waxaa samaynaysa wuu ku arkaa culammada qaarkood marka xigmad aada u fiican bay sheegaan oo waxay dhahaan haddaad rabtid inaa ilaahay ku caasiso oo aad dembi gasho oo ilaahay aad waxaan ku idhaahdaa dunuubtiisii aad ku kacdo waxaad ku caasisaa meeluusa ilaahay kaa arkaynin macnaha loola jeedo marka waxaa waaye ma jirto meeluusa ilaahay kaa arkaynin meel kasta ilaahay wuu kugu arkayaa sidaa darteed maadaama uu alla subxaanahu watacaala uu meel kasta kugu arkaayo waxaa la rabaa inaad mar walba xusuusan tahay oo maskaxda ku jirto oo qalbigaaga ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala wuu kuu jeedaa sidaa darteed adigana waxaa la rabaa inaad u dhaqanto marxaladda la yidhaahdo al-ixsaan oo ah inaad u caabudo ilaahay subxaanahu watacaala sidiina arkayso waxaana kaaga dhalanaysa mas-uuliyadda lagu saaray hadday tahay mid qaran hadday tahay mid qoys hadday tahay midda naftaada kaa saaran dhammaantood markaad dhaqmaysa inaad u dhaqanto mas-uuliyaddan aad samaynayso ilaahay wuu kuu jeedaa sidaa darteed ilaahay asagoo kuu jeeda wixii aad samayn lahayd waxaa lagaa rabaa inay noqdaan waxaad ogtahay inuu raalli ka yahay oo uu ajir kugu siinayo oo uu dembidhaaf kugu siinayo wallahu tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isaga waduudahan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidin la waastayne waxba kama qarsoon oo qalbigu wahan hadduu yeesho wixii weliba wow waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu magaceesu waa warisaan dhimane